kow labo iyo saddexba maanta ayay tahay in lasoo laabo xisaabtoodii dunida lagana oofiyo xadka qisaasta ay lahaayeen bacdama ay si gardaraha nafta u dhaafiyeen muwaadiniin aan waxba galabsan. lambarka koowaad Qudaama Xamse Yuusuf Maxamed oo afgarashadiisu tahay Yaxye ayaa ahaa dheerqabiyey shacabka degmada Kaaraan gacanta ay ku dhigeen isagoo gacmaha dhiig ku leh soona dilay Allah naxariistay eekis marxuum Shukax Cadaawe Maxamed oo ka mid ahaa shacabka degmada Kaaraan taariikhdu markay 19 bishii 2022 waxaana dilkan ku weelinayay Axmed Cali Sahal Maxamuud oo ka mid ahaa qawaariistii baxsadka ay ku geeriyootay xabsiga dhexe 13 bishii 2024. Qudaama oo hadda inala jooga ayaa sidoo kale dilay Allah naxariistay Cismaan Cabdi Macalin Yuusuf xilli uu ka soo baxay masjid uu ku gudanayay waajibka Alle waxaana marxuumka dhintay uu ahaa dhakhtar bartay cilmiga caafimaadka. dilkan ayaana ka dhacay degmada Yaaqshi taariikhdu markii ahayd 17 bishii 3 2022. dhagarihiisa kuma koobna intaas 8 bishii 2021 ayuu ku dilay xaafadda suuqa xolaha degmada Yaaqshi marxuum Cabaas Cali Maxamuud oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. 17 bishii 2023 ayayna maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah Qudaama Xamse Yuusuf. lambarka labaad Cabdi Xasan Rooble Afey waxa uu qawaariijta uga qayb galay dhowr weerar oo maleeshiyada ay ku qaadeen fariisimo ciidamada ay ku leeyihiin deegaanada ka tirsan Gado iyo Shabeellaha Hoose. mar dambe oo caasimadda loo soo bedelay ayuu ka mid noqday qawaariijta dilalka qorsheysan iyo qaraxyada fuliya waana gacantii dishay Allah u naxariistay marxuum Cali Maxamed Xasan Cali Gaab oo ka tirsanaa howlwadeenada wasaaradda gaadiidka laba xabadoodna uu madaxa uga dhuftay. falkan waxa uu ka dhacay waaxda Xaawataako ee degmada Wadajir 20 bishii 2022. Cabdi Xasan Rooble Afey dhageysiga galkiisa ayaa ku taariikhsnaa 24 bishii 5 2025 iyadoo ay u dhamaayeen dhinacyada dacwadda iyo maragyadooda. xukun dil toogasho ah ayana maxkamadda darajada koowaad ku xukuntay 22 bishii 6 2022. lambarka saddexaadna waa Ibraahim Cumar Shamcuun Hubka 24 bishii 4 2022 maalin Ramadaan ah ayuu san nafta dhaafiyay marxuumiinta kala ah Qaasim Axmed Abuukar iyo Cismaan Cabdu Cumar oo labadoo ka mid ahaa ganacsatada degmada Afgooye. isla isaga ayaana soo saamiyay falkan dilka ah ee dhabarka looga toogtay labada marxuum. garmaqalka falkan lagu soo eedeeyay kadib Hubka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxa ay ku riday xukun dil toogasho ah 7 bisha 8 2025 oo maanta ah ayaana dhamaantood saddexdan laga oofiyay xadkii qisaasta sidoo warbaahinta u sheegay xeer raaliye Gaashaale Maxamed Cabdullaahi Khaliif. maanta ay taariikhdu tahay 7 bishii 8 2025 waxaa lagu wada fuliyay xukunadii qisaasta ahaa. kow Qudaama Xamse Yuusuf Maxamed oo naanaystiisu ahayd Yaxye kaasoo loo qisaasay marxuum Shukax Cadaawe Maxamed, marxuum Cismaan Cabdi Macalin Yuusuf, marxuum Cabaas Cali Maxamuud. sidoo kale Cabdi Xasan Rooble Maxamed Afey oo isagana loo qisaasay marxuum Cali Xasan Maxamed Cali Gaab. sidoo kale Ibraahim Cumar Xaaji Shamcuun Hubka oo loo qisaasay marxuumiinta kala ah Qaasim Axmed Abuukar iyo Cismaan Cabdu Cumar. wabillahi tawfiiq. gudoomiyaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida heerarkeeda kala duwan General Liban Cali Yarow iyo Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa fagaraha fulinta toogashada xaadir ahaa waxaana waajibka fulinta qisaasta qaatay ciidamada booliiska gaarka ah ee Haramcad. Cabdi Fataax Khiyaar, warbaahinta qaranka, fagaraha cadaaladda.